runtii hadalka ku saabsan inaan wax isxasuusino ama u diyaar garowno amniga ama mas'uuliyaddeena garanno intii sheekhan yiri waa nooga filnay oo diinteena xaniifka ay aad u faahfaahaysa mar haddii diintuna tiri sheekhuna halkan noo sheegay kulligeen inaan wada mas-uul nahay oo nin walba uu mas-uul ka yahay wixii la raaciyey haddii qof walba mas-uuliyaddiisa uu ka soo baxo eedaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ama way baabi'i ama way yaraanayaan laakiin waxaa halkaa ka muuqanaysa haddii suluug ma jirto in mas-uuliyaddii dadka guud ay lahaayeen qaybtay rabaan ahaadaan qayb ka mida ay gabtay qaybtaas ha ahaato ama kuwa dowladda hadda loo igmado shaqooyinkaa leh ama ha ahaadaan kuwa aan xilalka dawliga ahayn aan hayn laakiin xilalka bulshada haya ama ha ahaadeen dadka weynaha guud ee caamka ah ee qoysaska ah oo iyaga naftirkooda diintu aysan ka reebin mas-uuliyadda muddadii u dambeysay shacabka Puntland iyo dowladooda oo aan kala harin waxay ku jireen guluf colaadeed oo ay kula dagaalamayeen dadkooda iyo dalkooda ku soo duulay oo rabay inay nabadgelyadooda waxyeeleeyaan waxgaradkooda baabi'iyaan kadibna maxastooda iyo hantidooda iyo dhulkooda la wareegaan runtii arrintaas waxaan uga mahad celinayaa shacabka Puntland meel kasta ay joogaan sidoo kale shacabka gobolka Nugaal iyo magaalada Garowe doorka ay ku lahaayeen runtii doorkaas uu shacabka lahaa ayaa ugu muhiimsanaa shaqada la qabtay maxaa yeelay laba arrimood oo muhiim u ahaa howlgalkaas ee runtii aad ku adkaa oo taariikhdu markeeda si gaar ah loo xusi doono waxa saldhig u ahaa wuxuu ahaa taakulada dhalinyarada dagaalamaysa ee u baahnaayeen oo mood iyo noolka isugu jiray oo bulshadeedu la garab taagnaayeen iyo wacyigelinta iyo dhiirigelinta ay helayeen dadkii shaqada ku jira oo shaqo aad u adag ah runtii muddo sanad ka badan sanad ku dhow dad baa maalintii ay ka dhaqaaqeen carmo dib u soo noqon ehelkooda arag reerahooda arag maalinba maalinta ka dambaysa waxay ku sii saqayeen meel ay adag tahay in la gaaro ciidamada ugu badan oo hadda howlgalka ugu dambeeya oo safaynta ah wada meesha ay joogaan in la qoodiyo waxay ku xiran tahay in cirka wax looga daadiyo ama awr u geyso xataa meel baabuurta geli karta maaha runtii caqabad aad u adag oo deegaanka dabeecaddiisa ah oo buuraley ah oo dhulka haddana ugu khayraadka badan oo biyaha leh waa meel aan baabuurtu geli karin oo meelaha qaybtood awrtu geli karin meelaha dameeraha kaliya galaan meelaha awrtaa gasha meelaha qaybtoodna cirka in wax laga siiyo ma ahane lama gaaro iyadoo sidaas tahay ayaysan kahan oo aysan dhibsan oo arkeen waajibkaas ay ummadda u hayaan inay ka gungaaraan waxaan ilaahay uga baryayaa intii dhimatay inuu u naxariisto inta dhaawaca u boogadhayo inta waajibkooda gudanaysan ilaahay uu fududeeyo waxaad ogtihiin 1991kii dalkan dowladdii rasmiga ahayd markay ka dhacday saldhigga booliiska ee magaalada Garowe askartii iyo ciidankii joogay kama tegin shaqadii ay wadeen ilaa ay Puntland uga imaanaysay 30 sano booliisku shaqadiisii ma gabin bulshadu ugu adeegay 30 sano waxay soo mareen duruufo adag oo kala duwan waxay ku soo shaqeeyeen tabarruc waxay ku soo shaqeeyeen dawlado amaamud ah waxay ku soo shaqeeyeen dawlado taageer oo aanan baahiyaha shaqadeeda u baahan yihiin iyo kuwa iyagu u baahan yihiin aan dabooli karin waxay ku jiraan kobac joogto ah waxay ka dhasheen bulshada waxay qayb kale yihiin bulshadu hadda meesha marayso dhibaatada bulshada haysa keligood ma daaweyn karaan haddaan la isqabsan arrintaas dowladdu mudday qorshayaalka waday sidii xal loogu heli lahaa
runtii qorshahaas wuxuu ku soo gabagaboobay in qaabka booliiska u shaqeeyo oo runtii ka soo doogay qaabkii dowladdii markaa jirtay oo casrigaasi qarnigaas labaatanaad ahaa oo qarniga 21aad oo 2000 markii la soo dhaafay bilowday adduunkii la yaqaanay uu isbedelay runtii iyaga naftirkooda waxay u baahan yihiin in dib loo milicsado war dadka aad maamulaysaan ma intii odayaashii booliiska ka soo hartay aad ka dhaxasheen oo inii sheegeenba ma intii uu Nuur Salaad ka tagayba ma intii odayaashii la mid ahaa ay joogeen ay ciidamadu u akhriyeenba mise wax kala soo baxay dabcan casrigii waa isbedelay adduunku waa isku furmay waxaa soo baxay dal aan dunida ka xirnayn oo saacadaas hadda aan halka joogna dadkii deegaankeenna daafaha adduunka kala jira kulligood ay ka warqabaan inaan halkaa joogno inta arrintaa ka wada hadlayno wixii dhibay adduunka ka dhici jiray oo dhanna noola soo rarayo marka waxaan u baahannahay booliiskeenu inay gaaraan sida adduunka aan rabno inaan u ekaano u shaqeeyaan inaan ula shaqeyno taasaa waxay keentay marka qorshaha booliiska uu dejiyey 24 ilaa ay 28 qorshe soconaya oo ujeedadiisu tahay casriyeynta shaqada booliiska oo u baahan yihiin in kor loo qaado aqoontooda agabkooda iyo xirfadooda shaqo runtii arrintaas taliska booliiska iyo taliyaha booliiska oo ugu mahad celinaya oo waqti geliyay madaxweyne ahaan iyo dowladduna runtii arrintaas maanan dhayalsan oo gacan weyn aan ka geysanay si arrintaas wax looga bedelay waxyaabaha ka dhinaaday ee soo baxay ma raba inaan halka wada sheego oo waa maxfal laakiin runtii markaan aragnay daraasadoodii waxaa noo soo baxday bannaan badan oo u baahan in la awdo oo firaaq ah oo u dhaxeeya waxa ay haystaan oo ay ku shaqaynayaan iyo waxa laga doonayo iyo shaqada ay rabaan inay qabtaan waxa u dhaxeeya runtii qorshahaas wuxuu bilowday isla sanadkaas 2024 bishiisii 9aad waxaa ugu horeeyay in dib loo casriyeeyo xarumaha iyo goobaha ay ku shaqaynayaan waxaa ku xigay in la qaato ciidan cusub oo runtii xirfadooda aqooneed ee u baahan yihiin in la gaarsiiyo kow iyaga ruuxadooda ay wax uga amaamudan yihiin aqoonaha kaleeto ee lagama maarmaanka u ah xirfadaha soo kordhay waxaa tababarkii u horeeyay ka soo baxay 500 oo u horeysay waxaa ku jira 5 kale sidaas waxaa isku daba socon doona qorshahaas ilaa 28 ka soconayo ilaa dhammaan ciidamada booliiska Puntland aqoontooda ay soo wada gaarto kuwa hadda jooga dib loo tababaro kuwa cusub tababar la siiyo arrinta oranaysa ma kuwa hadda jooga tababar la geliyaa la soo celiyaa mise kuwa cusub baa lagu bilaabayaa iyaga hormuud noqda runtii maadaama isbedel la rabo oo wax badan la rabo in la bedelo waxaa qorshuhu noqday in kuwa ugu horeeya ay noqdaan kuwa cusub oo la tababaro iyaguna ay noqdaan kuwa shaqooyinka la rabo inay qabtaan lagu tijaabiyo arrintaas saad ogtihiin tababarkeedu way dhammaysteen inteedii badan waa la socoteen tijaabadii ugu horeysay waxay ku galeen 2 degmo oo gobolka Karkaar ka tirsan oo magaalada Qardho iyo magaalada Waaciye waxaa ka soo baxay natiijo fiican oo lagu ogaaday dhalinyarada tababarkii la siiyay ma u bedeli karaan si ficil ah oo ma ku shaqayn karaan muddo bil ku dhow hawshaas wadeen natiijadii ka soo baxday waxay noqotay inay ku filan yihiin shaqada bishaas waa lagu dul kontaroolay oo dad iyaga aan ahayn oo saraakiishii hore ah la shaqeynayay markaas waxaa la tijaabinayay iyaga qorshaha hadda socda oo aan rajaynayo bari wixii loo gaaro inuu ka bilaaban doono magaalada Garowe markaa waxaa la rabaa in la tijaabiyo systemkii ay booliisku rabeen inay u guuraan oo ay ku shaqeeyaan
systemkaas markan booliisku sidii ula shaqeynayay markay karkaar joogeen ula shaqeynayaan dushu bay ka eegayaan kulligeed say u dhan tahay shaqada booliiska ee magaaladan ka socotay iyagaa la wareegaya waxaynu qiimayn doonaa annagoo wada jirna marka maxay tahay qiimaynta ka soo baxday systemku sidee u shaqeeyey systemkaas waxaan rabnaa oo ugu muhiimsan inuu noqdo system isku dhaf ah oo booliiska iyo dadweynuhu ay wada shaqeynayaan waanan ahayn booliis meel taagan iyo bulsho la ilaalinaya aan ahayn systemkan wuxuu yahay inay inta badan shacabku ay booliiska qayb ka noqdaan waa nidaam caalami oo adduunka ka jira oo la yiraahdo booliisaynta bulshada maxaa yeelay ciidamo dhowr ah oo magaalo jooga kuma filnaan karaan xaalad kasta oo jirta inay ogaadaan guryaha dhexdooda waxa ka jira waxa ogaan kara hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo dhalinyarada gudaha ku jirta waxaan rabnaa bulshadeena inay gaarto qofku inuu soo sheego waxa khaldan u arko isagu inta aanan ciidanku arag waan ku faraxsanahay odayaasha gobolka Nugaal inay soo saareen xeer noo dhaxaynayo oo ku kala garbaxayno hadhow haddii wax nagala dhex dhacaan ninkii sharciga ka gudba ama shaar dowladeed haysto ama mid shacab haysto sharciga loo simeeyo qabanayo marka waxaan u baahannahay maadaama tijaabadaas cusub aan u gudbayno inaynu noqono dad wada socda oo meel u socda xagee u soconnaa marka su-aasha meesha taallo runtii Puntland 27 sano jirtay waxay u aasaasantay inay dadkeeda badbaadiso oo ku horumariso intii fakartay iyo intii aasaastay iyo intii ka soo shaqaysaba intii dhimatana ilaahay u naxariiso inta noolna ilaahay cimri caafimaad fiican ha siiyo runtii waxay ahayd guul taariikhi ah oo dadka dhulkan jooga wax badan bay ka soo shaqeeyeen oo taariikhda Soomaaliya galay laakiin anigu